حديث أي مفسرين تو أنت بدنا أيضا مركي فسر ينا يسوق أعطاني نعاوز تلتاجم حديث كسوة حديث كصحيحين ككوية الله إمام البخاري بسوء أروريي إمام الترمذي نوا سوء أروريي أئمة كلا نوا صارتي إمام البخاري لما ميلاد بقصة صارابا في ليه وحديث كعان كان نعمان بن بشير والنبي قولي عليه الصلاة والسلام مثل القائم على حدود الله أو مثل المدهن في حدود الله المدهن يا القائم يا ريبضان وكلا نوع حديث كصاروري حديث كجودهان بين التلمامين نبي عليه الصلاة والسلام حلي حديث كان قفك إلهي حدودي سإلالية وحي الله وغيري راعة وحي وكرر بين كتاغا كمجتمعهان وحي لمديهم با إلهي سبحانه وتعالى كمثل قوم استهموا السفينة وحي لمدين دون وضفولية دبتنا الدون توحي سمينيان وقرطورانيان قرطورة كادتك بد حق سرو هليا دتك بدنا حق هوسو هليا دتك حق سره جوجا يا دتك حق هوسه جوجا لبا طبق بيي دتك هوسته جوجا markay biyo u baahdaan buu nabigu alayhi salaatu wasalaam xagga sare u soo baxayaan dabatana kuwii saraa dhibsaday qoladii xagga hoose joogtay waxay tiri war nimankan maxay noo dhibsanayaan xal maynu raadino xal waxay u arkeen inaanay nimankan qaybtoodaba ugu tagin inay meeshooda dalooshadaan doonta meeshooda inay ka dalooshadaan oo biyaha xaggan ka raadceeyaan ayay xal u arkeen nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay markaasi hadday kuwa xagga sare jooga gacanta ka qabtaan si aanay doonta u daloolin waa badbaadayaan iyaguna kuwana waa badbaadayaan labada kooxoodba waa wada badbaadayaan haddii ay ku sii daayaanna labada kooxoodba waa halaagsamayaan nabigu alayhi salaatu wasalaam suurad buu markaa inoo sawirayaa noloshu inay la mid tahay doon la wada saaran yahay xadiidka nabiga alayhi salaatu wasalaam markaynu u fiirsanno nolosha laguma mithaalin daar taagan ama dhul taagan ama waxa lagu tilmaamay doontu waa bahashan badda marta baddu waa meel mawjada leh cawaasif ka dhacdo dabayl ka dhacdo waa meel aan deganayn mutarib ah waa meel xarakaadkeedu tiro badan yahay waxa la tilmaamaya markaa noloshu gebigeeduba horta inay caynkaatay laa budda min mashaakil mar haddii la nooliyey waxaynu dunida u nimina waaba in layna itixaamo ولذلك بقى إلهي سبحانه وتعالى القرآن كوحو كنت المامية إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه بني آدم كوحا الله أبو رين لا يمتحامه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إلهي وحي نوت المامية أدونك كان بني آدم كو دقن يهي إنا نمرنا بمشكلة دوين دوم بدا مريسا ما مشكلة ويدو وماشي ساعة واصفته كنا عيسو مشاكل كوكتشيران ساو قيد بقى إلهي القرآن كوحولي لقد خلقنا الإنسان في كبد آدمها وحال قد حابوري بير حنون إذن تصالها كوادا إنه كفها بإنه حديث كالنبي عليه الصلاة والسلام إنه كنت المامي دون ودا صارني وحي تلمامي سأنه لشو inay cawaasiftaasi laabud inay la kulantaynaytay waa mar labaad haddaynu xadiidka dib ugu noqonno doonta dadkoo dhan baa kiraysta oo fuula taa macnaheedu waxa weeyaan fiihim alsaalix waalطaalix wa fiihim alcaalim waljaahil wa fiihim alghaniy walfaqiir doonta cid walbaa fuusha bikulli aطyaafi almujtamac بلشدة نوعيات كذا أيا فوليا فالحياة كذا ما شرتم مال دوني دا يكون نولين ضد وضفي عن مال يكون نولي ما شرتم مجتمع كستو بني آدم ككم ده ضد كحنية ضد كسنوي سريحة أنا ما حقي باطل كوي سريحة متبابطة لكن حتى هذا يكون حق وضابطان
macnaheedu maaha mujtamacu inaanu ku jirin dad dhiblowi xataa haddaad eegto mujtamacii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ee madiina ee uu nebi moxamed hogaaminayey muhaajiriin bay lahaayeen oo ansaar bay lahaayeen oo munaafiqiin bay lahaayeen oo yahuud bay lahaayeen oo mushrikiin bay lahaayeen wuxuuba madiinay deganaayeen madiina mujtamaca deganay markaa ma wada ahayn mujtamac wada muhaajiriinta iyo ansaarta la wada nooca ma ahayn ee mujtamac munaafiqiina ka mid tahay yahuudi ka mid tahay mushrikiin ka mid yahay bulshada caynkaasuu nebi maxamed hogaaminaya calayhi salaatu wasalaam noocyadkaasi isugu jirta idan noloshu mar kasta doontaasay la mid tahay dadka kala wada noocii fuulaan waa mar saddexaad haddaynu doonta dib u eegno waxau nebigu ku tilmaamay in la qori tuurtay oo nasiibka badhna ay xagga sare heleen badhna ay xagga hoose heleen taa macnaheedu waxay tilmaamaysaa dadku maqaadiirta ilaahay bay ku dhaqmayaan qaar baa ilaahay madax ka dhigaya qaar baa caama ah qaar baa culamaa ah qaar baa juhaala qaar baa haniya qaar baa waxba haysta qaar baa caafimaad qaba qaar baa buka nolosha beyj ka mida unbaa kugu soo hagaagaya maqaadiirta adigu ma go'aamisid bulshadu maadaama ay caynkaa tahay waxaa laynoo sawiray sawirkaa marka erayo gaara wax lagugu sheegaya marka suurad lagu siiya waa kala nooc walidaalika baa ilaahay wuxuu qur-aan ku tilmaamaya watilka alamthaalu nadribuha linnaas wamaa yacqiluha ila alcaalimuun tusaalayaal baan dadka u yeelayaa baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala laakiin si fiican uma fahmaan inta aqoonta le mooyaane